dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka ayaa galay maalinkiisii labaad xaaladuna way sii adkaanaysaa waxaana la arkayaa dad fara badan oo ka barakacaya guryahooda gudaha dalka Ukraine gebi ahaanba dalka waxa uu qabsaday dagaal ballaaran oo daafaha kala duwan ee Ukraine ka dhacaya sidoo kale waxaa jira dad fara badan oo Ukraine ka qaxaya oo u qaxaya dhinaca iyo Poland iyo sidoo kale Romania sidoo kale waxa wadooyinka iyo markaasi daafaha kala duwan ee caasimadda Kiev ee wadankaasi Ukraine lagu arkayay gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ee ciidamada Ruushka ay leeyihiin sida ay muujinayaan muuqaalo laga soo duubay oo baraha bulshada lagu baahiyay waxay muujinayaan gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ee Ruushka oo gaafareegaya caasimadda Ukraine gudaheeda xaaladuna waxay noqotay mid si cakarmayso marba ka dambaysa arrinka ugu culus ee Ruushku ka cararayo ayaa ah inuusan doonaynin dal ka tirsan NATO inuu xuduud la wadaago mustaqbalka istaraatiijiyadeed ee NATO ayaa uu doonayaa inuu ka hor istaajiyo inaysan xuduud la wadaagin waana arrinka keenay in Ukraine haatan uu soo weeraro Ruushku haatan oo ay socoto dhibaatada Ukraine oo ay haysato ayaa waxaa jira dhinacyo kala duwan oo ay dunidu wax ka fiirinayso sida saameynta ay ka dhalan karta dagaalkaasi waa marka koowaad dhibaatooyinka ka dhalan kara waxa la sheegayaa inay ka mid noqon doonaan dhinaca dhaqaalaha oo saamiyada durtaba sida bariga Yurub durtaba uu hoos u dhacay iyo sidoo kale Asia iyo sidoo kale maalgashatada oo hoos u dhacay iyo sidoo kale wax soo saarka maadaama labada dal ee Ruushka iyo Ukraine ay yihiin laba dal oo wax soo saar leh oo haatan maadaama wadamadii reer galbeedku ay cunaqabatayn saareen wadankaasi Ruushka oo markaasi la joojiyay sidoo kale dhuuntii shidaalka qaadi jirtay ee keeni jirtay wadamada Jarmalka in la joojiyay gebi ahaanba iyadoo laga jawaabayo weerarka uu qaaday Ruushku si loogu cagaadiyo in uu ka laabto dagaalkan oo haatan bilaabmay ayaa duqeyntan ugu dambeysay xilli ay aroortii hore ee saaka ahayd uu duqeeyay Ruushku magaalada caasimadda u ah Ukraine ee Kiev dhibaatooyinka ka dhalan kara waxaa ka mid ah in qulqulka muhaajiriin fara badan oo ka soo qaxa dagaalka ay xarqiyaan qaaradda Yurub maadaama malaayiin qof ay ku nool yihiin dalka Ukraine halka haddii lagu dul dagaalamo oo dagaalku sii adkaado waxaa dhici doonta xataa in dadkaasi kala yaacaya ee firdhadka ah uu hubku uu iskaga gudbo xuduudaha ka oo ah khatar ammaan oo ku soo fool qaaradda Yurub sidoo kale waxaa jirta in Poland ay u sii diyaarisay goobo ay dadkaasi kula macaamili lahayd si ay markaasi uga gabadaan waxa ay dalkooda ku soo arkaan haddii ay dhacdo in uu dagaal buuxa uu ka bilaabmo gebi ahaanba wadanka Ukraine Poland ayaa sheegtay inay haatanba u sii diyaar garowday qulqulka muhaajiriinta iyo meelihii la dejin lahaa maadaama la arkayo khatarta soo jiijeela ee ka soo socota Ruushka iyo xoog qabsashada wadankaasi Ukraine haddaba aanu nimaadno dhinaca quwadda caalamka Ukraine waxay ka mid ahayd quwadaha caalamka waxayna haysatay hubka nukleerka oo ay ka dhaxashay midowgii Soviyeeti laakiin arrinkaasi waa uu seegay oo ay burburisay halkaana waxay kaga hadhay quwadaha caalamka waana arrin ay maanta ka shalaynayaan reer Ukraine oo farta dhexda ka qaniinsan hubka nukleerka oo ah masiibo ay bini'aadamku qacmooda ku samaysteen lagama yaabo dal haysta inuu dal kale daandaansado siyaabo kale way u loolami karaan oo gorgortan way dhici kartaa laakiin dagaalka foolka foola ma dhici karo dalalka quwadaha caalamka wayna kala dhacayaan maxaa yeelay waxay og yihiin dhibaatada ka dhalan karta hubkaasi ay haystaan haddii la isku adeegsado isaga oo aan hubkuwa ku gaadhin waxa khatar kuugu filan sunta hubka kiimikada ee sida xun loo sameeyay ka oo hydrogentaas bomboonkaas masiibada ah haddii lagu garaacay Ukraine ay noqon karto masiibo hor leh oo bini'aadantinimo oo dunida kalena saameyn karta waaba haddii uu dagaalku sii ballaadhay hubka nukleerka waxaa tusaale kugu filan ka waran 1940meeyadii magaalooyinkii lagu dhuftay sidii lagu noqday haddaba 40meeyadii waxaa ka soo wareegtay in ka badan 70 sannadood waana wax ku tusinaya tiknoolajiyadda cusub hubka la jaan qaadaya ee ay samaysteen quwadaha caalamku taas oo muujinaysa masiibada uu leeyahay hubka nukleerku arrimaha khatarta ee soo socda ee laga sii digaya waxaa ka mid ah in durtaba la arkayo dad fara badan oo doonaya inay ka baxaan dalka Ukraine oo markaasi jooga goobaha markaasi shidaalka baabuurta lagaga shubto iyo sidoo kale bakhaarada ay cuntada ka qaadanayaan iyo sidoo kale in ay lacagtooda kala baxayaan bangiyada wadankaasi Ukraine iyo sidoo kale in wadanka Ruushka xataa laftirkiisa magaalada Moscow ay ka socoto dadku inay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay lacagta ugala bixi lahaayeen bangiyada maxaa yeelay haddii cunaqabataynta dhaqaale ee lagu soo rogay Ruushka ay saamayso waxa suurtagal maadaama dhaqaale labada dhinacba uu kaga baxayo dagaalka
in la isticmaalo lacagtaasi dadka ugu jirta sanduuqyada markaasi bangiyada si dagaalka loo ugu ofkareeyo oo loogu fashado. haddaba arrinkan uu ka dambeeya Vladimir Putin ee uu ka leeyahay inuu kula gorgortamo reer galbeedka ayaa waxaa jirta inay cunaqabateyn ba'an la adeegsanayaan oo la beegsanayaan Ruushka sidii ay uga hortaagi lahaayeen ama uga hortagi lahaayeen in uu Ruushku uu xoog ku qabsaday Ukraine. siyaabo kala duwan ayay warbaahinta dunidu qaadadhigaysaa saacadihii lasoo dhaafay duulaanka uu Ruushku qaaday ee ku aadan Ukraine. marba marka ka dambeysana waxaa sii adkaanaysa xaaladda Ukraine iyadoo oo wadamada reer galbeedku ay muwaadiniintooda horeba uga baxeen wadankaasi Ukraine markii ay sirdoonkoodu xaqiijiyeen duulaanka Ruushka. sidoo kale wadanka Ukraine waxa uu xuduud dhinaca waqooyi kala wadaagaa dalka Belarus oo saaxiib dhow la ah Vladimir Putinka Ruushka, halka oo ciidamada Ruushku ay ka soo galeen dhinaca waqooyi iyo dhinaca bari iyo sidoo kale jasiiradda Qrim iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo Crimea, taa oo u muuqata in la isku hareereeyay gebi ahaanba dalka Ukraine. duqeyntan ugu dambeysay ayaa madaxweynaha wadankaasi Ukraine oo hadlay ayaa sheegay inaysan dadku markaasi banaanka u bixin oo ay galaan goobaha gabaadka ah isla markaana aysan isdhexyaacin oo aan la cabsan oo loo diyaar garoobo dagaal buuxa oo ay kaga hortagaan ayuu yidhaahdeen kelitalisnimo. dhinaca kale Vladimir Putin waxaba uu amray ciidamada Ukraine inay diriiska dhiibaan oo ay iska saaraan oo ay shicib noqdaan inta ay goor tahay. isaga oo arrinkaasi uga digaya ayaa uu ku celceliyay inay ciidamada Ukraine hubka dhigaan oo ay shacab noqdaan, isagoo arrinkan uga gol leh inuu ku cadaadiyo ciidamada Ukraine in laga awood badan yahay oo la baabiin doono oo khatar ay geli karaan. maadaama Ukraine iyo Ruushka aan la isbarbar dhigi karin dhinaca awoodda dhaqaalahaan ama sidoo kale military ahaan oo aad u kala baawar badan, taas oo muujinaysa in xataa maadaama Ruushku uu yahay Soviet manaxyaala ay xataa suurtagal tahay inay adeegsadaan hubka kiimikada iyo nuclearka oo masiibo iyo khatar bini'aadantinimo oo horleh ay kasoo ifbaxdo goobahaasi lagu dagaalamayo ee Ukraine. xaaladda Ukraine marba marka ka dambeysa way sii darsanaysaa. wararka kasoo baxayana waa kuwo tirabeel ah gebi ahaanba wadanka Ukraine, waxaana muuqata in dadku kala yaacayaan oo ay qaadanayaan raashin iyo waxyaabo kayd ah oo ay lagu amray inay guryahooda joogaan, isagoo uu yeedhaya seeriga markaasi loogu talagalay in ay dhibaato dalka ka jirto oo ay dadku galaan goobaha gabaadka ah si ay uga badbaadaan duqeynta socota ee uu Ruushku soo qaaday aruuriyadii hore ee saaka ee wadanka Ukraine. dhinaca kalena waxaa jira shirar ay leeyihiin wadamada reer galbeedku oo la doonayo cunaqabateynta in lagu sii kordhiyo wadanka Ruushka, balse ma jirto inay Ruushka ay la dagaalami doonaan wadamada reer galbeedku oo dagaalka foolka-fool ah u dhici doono. waxaan ka ahayn cunaqabateyntaasi iyo waxyaabahaas afka laga sheegaya ee la yiraahdo, laakiin haatan Ukraine waxay dareemaysaa in haatan wixii ka dambeeya ay gashay dagaal buuxa oo markaasi ay kala cadaan doonaan saaxiibada dhabta ah ee wadanka Ukraine ee wadamada reer galbeedka. waxaana la filayaa in wadankaasi dhinaca dhaqaalaha saada ciidanka ay ka taageeri doonaan reer galbeedku iyo dhinaca hubka militariga in lagu taageero dalkaasi Ukraine. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo baxa wadanka Ukraine oo wararkiisu ay yihiin kuwo tirabeel ah sidaan warbaahinta ka arkaynana waan arki doonaa bal halka ay ku dambeyn doonto xaaladan dalkan Ukraine ee haatan uu dalkan quwadda labaad ee dunida uu doonayo inuu xoog ku qabsado.